Ethiopia waa mid ka mid ah dalalka aan badda lahayn ee caalamka, laakiin waxay leedahay maraakiib iyo ciidanka badda. Tani waa qayb yar oo ka mid ah khudbadda ay madaxweynaha Ethiopia Sahle-Work Zewde toddobaadkan ka horjeedisay golaha baarlamaanka. qaybtan waxay kaga hadlaysaa baahida uu dalku u qabo dhinaca biyaha iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in Ethiopia ay saameyn ku yeelato badda cas. የሀያላኑ ሀገራት ፍጥጫ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። waxay sheegtay in Ethiopia muddo dheer laga hortaagnaa samaynta arrintani, taasina ay ka dhigtay daawado meel fog ka jooga ganacsiga lagu qiyaaso 700 bilyan. waxa ay tiri tani ma sii socon doonto. አሁን እንግዲህ ቀይ ባህር ትልቁ ነገር ነው። ከአባይ ቀጥሎ እንግዲህ ኢትዮጵያ aliye Professor Ababaw Ayalow waa macallin dhiga taariikhda, isagoo ka falcelinayay hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu yidhi badda cas waa waxa ugu weyn ee Ethiopia heli karto marka laga soo tago webiga Nile. ቀይ ባህር አካባቢ ላይ የራሷ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖራት ይገባል። si ay Ethiopia u noqoto waddan xoog badan ku leh geeska Afrika waa in ay saameyn ku yeelato badda, xitaa haddii loo baahdo dhismaha ciidanka badda. ሀገር አንፈልግም። Dr. Malaku Tagany waa aqoonyahan wax ka bara culumta siyaasadda, waxaana uu sheegayaa in hadba cidda maamusha badahani ay maamuli karto waxyaabo badan. አትላንቲክና ፓሲፊክ ማነው አትላንቲክና ኢንዲያን ኦሽን ብሎም ደግሞ ፓሲፊክ ኦሽን የሚገናኙበት መንገድ ነው እና አንዱ ፋክተር ይሄ ነው። ይሄንን ኤሪያ ኮንትሮል የሚያደርገው ብዙ ነገር ኮንትሮል ያደርጋል። ማንም ተጽዕኖ ያሳድርብን ma jirto cid noo diidi karta doorka ku leh geeska Afrika. waa midda aanu la saaxiibayno Soomaaliya ama Eritrea, xiriirka Suudaan uu u yahay bilow wanaagsan. እንግዲህ ወደ ሶማሊያም ወደ ወዳጅነት የወሰደን ከኤርትራ ጋርም ወደ ወዳጅነት የወሰደ Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee dhawaan la doortay oo hadda ka hor ka hadlaya booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho, waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku taalo goob juqraafi ahaan istiraatiiji ah, laakiin xeebteeda dheer ay marar badan dhacdo in aan hal markab ku soo xidhan. ሶማሊያ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ጂኦግራፊካል ቦታ ያዘች ሀገር ናት። ነገር ግን ያ ሁሉ ሶማሌን ከቦ ያለው ውሃ በቀን አንድ መርከብ የማይታይበት ሆኖ ይታያል። si taasi looga baxo waxa uu ku taliyay in ay laga maarmaan tahay helitaanka iskaashi dhaqaale oo xoog badan, taasi oo wadamada geeska ka dhigi kara sida hal dal oo kale, si la mid ah Mareykanka, Imaaraadka Carabta ama Yurub. si kastaba ha ahaatee 24kii bishan ayaa Ethiopia waxay mar kale ku dhawaaqday in ay gashay bog cusub. qorshaha ay ka leedahay badda ayaa la filayaa in boggani uu qayb ka noqon doono